kulan wacan daawadayaal halkan waa kanaalka arrimaha dhaqaalaha ee ganacsiga ee gal ganacsi. waxaa in badan la isweydiinayaa nidaamyada laga shaqeysto lacagaha online-ka ah ee Soomaalida inta badan lagu dhaco maxay yihiin, ma nidaamyo jira oo sax ah mise nidaamyo lagu maran habaabiyo bulshada Soomaaliyeed kadibna markii ay u arkaan in maaragtay lacag laga helayo lagu dhaco. waxaan wareysi gaar ah la yeelanaynaa Haashim Maxamuud Xayle oo ah khabiir bartay culumta dhaqaalaha oo nala falanqeyn doona mowduucan lacagaha online-ka ah iyo hababka ay u shaqeeyaan, aqoonna u leh. Mr. Haashim, soo dhawow. waxaan ku weydiinayaa ama su-aasha ugu horeysa ee barnaamijka ay tahay maxay yihiin nidaamyada maaliyadeed ee lacagaha online-ka lagu shaqeysto? marka hore waxaa waaye Mr. Jabir aad iyo aad ugu mahadsan tahay. farxad iyo sharaf weyn waa ay tahay maanta inaan idinla joogo. intaa kadib su-aasha ay weydiisay oo la xiriirto waa maxay nidaamyada online-ka ah iyo qaabkay u shaqeeyaan. horta markaan ka hadalna nidaamyadan online-ka ah waa nidaamyo jiro oo adduunkan ka jiro. marka laba qayb ay iskugu jiraan, waana gudageli doonaa hadduu Ilaahay yiraahdo. qaybta koowaad waxaa waaye qayb oo dadka wada yaqaanano adduunyada dhan ka jirto oo waxaa waaye hab. horta nidaamyadan waxaa la yiraahdaa nidaamyada online-ka waxaa waaye waa hab online dadka waxaa waa uga sameynayaan lacag uga sameynayaan. waa qofka asigoo gurigiisa joogo kaliya wuxuu u baahan yahay qofka inuu helo internet iyo waxaa la yiraahdaa toolskii oo telephone ama waxa la computer online. marka qofka uma baahna in waxaa la yiraahdaa meel aado inuu wadan hebel joogo, uma baahna wax shuruudo kuma xirno. marka nidaamyada marka laba qayb oo iskugu jiraan. kuwana waxaa waaye hadda waxa soo ifbax waa aragteen oo barnaamijyo fake ah oo dadka lagu dhacay soo ifbaxay. kuwana waxaa waaye kuwa aan waxaa la yiraahdaa raad iyo sal lahayn oo waxaa waaye aan shaqeynin. kuwana waxaa waaye kuwa labada yaqaano waxaa waaye adduunyadana ka jiro oo dadkana waxaa waaye ka ganacsadaan oo dad badan oo maanta taajiriin waxaa waaye maalgelin badan ku sameeyeen. haddii aan wax ka taabano marka ugu horeyso waxaa waaye suuqada ugu weyn oo adduunyada waxaa waaye online-ka waxaa ka mid ah stock market. waa maqashay suuqa stocka. suuqa stocka waa suuq oo qofka wuxuu sameynaa wuxuu iibsanaa share ama equity, wuxuu ka iibsanaa company ka mid ah companyada adduunka ugu waaweyn oo ka iibsanaa. micnaheedu waxaa waaye qofka markuu share ka iibsado company-gaas oo qofka share ka yahay hadhowtina waxaa waaye wuxuu faa'iidada ama khasaarada lahayd waa la qaybsanaa. si lamid ah kuwa ugu caansan waxaa ka mid ah forex-ka. forex-ka waxaa waaye waxaa laga soo gaabiyay horta foreign exchange market waaye. foreign exchange market markii lana taariikh gaar oo leeyahay, marka in hadda taariikhdiisa halkan laguma hadli karo, waa taariikh fog oo leeyahay. laakiin taariikhda oo foreign exchange market online-ka markaa fiirno waxay soo ifbaxday 1996 waqtiyadaas. marka suuq weyn waaye oo maalintii lacag aan caadi ahayn isku dhaafta. marka Soomaalida markaa fiirso forex markay maqlaan waxyaabo badan ku soo dhacay. marka ma ahan forex haddii maqlaan in kii dadka lagu dhacay maahan. forex suuq weyn oo jira waaye oo laga kala ganacsado waaye. sidoo kale suuqada ugu waaweyn oo adduunka online-ka waxaa ka mid ah waxaa la yiraahdaa cryptocurrency. soo maqashay lacagaha online-ka oo qofka oo asigoo xaafadiisa jooga ama online transaction oo sameynayo. kaliya ayadana waxay u baahan tahay qofka saa soo sheegnay kaliya in internet iyo waxaa la yiraahdaa iyo xirfad inuu leeyahay. qofka marka wuxuu sameynayaa wuxuu iibsanayaa lacag oo markastana waxay ku base garaysan tahay lacagahan cryptocurrency-ga sida forex-ka kale buy and sell ku base garaysan tahay. qofka lacag oo markan hoos taala laakiin la rajeynayo inay ziyaado oo qofka iibsanaya si mustaqbalka oo ugu sameeyo waxaa la faa'iido badan ugu sameeyo. waa farabadiin waxaa kaloo ka mid ah dhanka education-ka. marka aadno waxaa jiraan digital courses, koorsooyin la xiriira dhanka waxbarashada. waa kabar qabtaa barnaamijyo badan jiraan oo online-ka dadka wax laga barto lacag laga sameeyaa. waxaa ka mid ah qaybta marka aado shopping-ka, online shopping-ka. adiga qofka si uu gurigiisa joogo waxaa waaye oo dukaameysanaa xaafadiisa marka delivery iyo wixii la midka loogu keenaa. marka u soo laabana marka qaybta kale aan dhehayno waxaa waaye waxaa jirto qayb fake ah oo sal iyo raad aan lahayn oo dhawaanahana soo ifbaxeen loogu talagalana dadka in lagu dhaco. waxaa lahaa CJ on style. kuwa kasii horeyna waa jiraan Jane Mind mid lahay, laakiin hadda midka dadka lagu dhacay oo aadka loogu dhacay ilaa hadda laga hadlayo waxaa ka mid ah waa kan ugu caansan CJ on style. marka CJ on style kaas waan arki doonaa asiga markaa fiiro. CJ on style waxaa waaye waa jira company jira waaye CJ group aa la yiraahdaa. marka CJ on style kan waa barnaamij fake ah oo dad waxaa la yiraahdaa oo dhalinyaro oo waxaa la oo aad u yaqaan waxaa la IT-ga ku horumarsan barnaamij ay sameeyeen loogu talagalana dadka waxaa la in lagu dhaco. waxaa la yiraahdaa dadka lagu mira habaabiyo iyo wixii la midka. marka barnaamijkan CJ group waa company jiro oo adduunyada ka jira waa,
laakiin CJ on style asiga wax jira maahan waa barnaamij fayga oo dhawaanahan soo ifbaxay oo la sameeyay hadafka ugu weyn loo sameeyay wax kale maana waxa waa in dhalinyarada ama dadka lacagtaysa ganacsatada in lagu dhaco marka CJ on style CJ asiga wuxuu matalayaa oo sida ayaga meesha soo qorteen marka profilkiisa gasho CJ group backgroundkiisa saaran CJ group waa company weyn oo ku yaala dalka South Korea ku yaala waa company la yaqaano company-ga waxaa la aasaasay 1953 company-gan waxa waaye waxyaabaha oo bixiyo waxaa kamid ah adeegyada la xiriira cuntada iyo wixii la midka waxyaabaha pharmaceuticalka oo daawooyinka iyo wixii la midka sidoo kale wuxuu bixiyaa logisticska sidoo kale wuxuu bixiyaa online shoppingka iyo waxyaabo badan oo bixiya marka company-gaasi waa company la yaqaano oo adduunkan ka jiro headquarterkiisa ugu weyn waa Seoul magaalada waxa waaye caasimadda South Korea waa laakiin kan oo magaca soo qaatay oo iska dhigay inay yihiin CJ group waa wax fake ah loogu talagalnay in dadka lagu dhaco marka waa barnaamij marka ay sameeyeen aniga waxaan leeyahay dad dhalinyaro ah oo at least u baahan inay dadka dhacaan meel kasta adduunyada joogaan waa sunta marka waxa ku soo celisay in badan waxa jiro nidaamyo lagu shaqaysan karo online ka oo si saxan ah iyo fake ah maxaa lagu kala aqoonsan karaa marka labadaas kuwa been abuurka ah iyo kuwa saxan in ay jiraan maxaa lagu kala aqoonsan karaa marka fiiriso horta nidaamyadan waxa waaye nidaamyo oo waxa waaye online ka lacag loogu sameeyo sida hore u sheegnay waxa kaliya qofka lagu dareemi karo waxa waaye horta nidaamyadan si guud waa dareemi kartaa oo qaacido guud waxa jirta oo waxa la yiraahdaa markii laga hadlayo finance-gana muhiim ah in la fahmo ah shay kasta oo markasta profit-kiisa badan yahay si la mid ah waxa badan riskigiisa badan admins shayga hadduu profit-kiisa badan yahay riskigiisana waa badan yahay marka barnaamijyada waxaa moodaa dadka dhawaanaan soo baxay sida CJ on style oo dadka lagu dhacayo waxyaabaha lagu garanayo waxaa kamid ah barnaamijkan waxaa waaye barnaamij markaa fiirisa aad gudaha gasho markaa baarto historygiisii wax background ma laha maadaama uu wax background lahayn si la mid ah profit-ka ee bixinayana waa wax qeyr caadi ah maalintii qofkii maal gashta lacag tusaale $100 maal gashto maalintii wuxuu leeyahay 4% helaa means bishii waxa uu kordhaysa 20% $120 uu kordhaysa lacagtiisa macnaha waxa waaye qofkaas wixii percentage wuxuu helay aan caadi ahayn oo 20% lacagtiisa siyaadi taasna wax macquul ma ahna adduunyada markaa fiiriso nidaam waa ka jira laakiin nidaamkan waa nidaam qeyr caadi ah marka qofka taxliiliya oo aad u baara barnaamijka uga kara waxyaabo marka ugu badan oo qofka ku dareemi karo waxa kamid ah inaysan wax certificate marka kambaniyada online ka fiirsan marka waxay leeyihiin meelo lagu hagaagay waxay leeyihiin waxa la shuruudo laga fiiriyo waxa kamid ah qofka kambaniga wadanku ka dhisan yahay dadka kambaniga iskale oo asaaseen si la mid ah kambaniga inuu leeyahay waxa leeyahay certificate inuu leeyahay si la mid registration inuu ka haysto wadanku ka diiwaan gashan yahay marka waxyaabahaas la isku geeyay dhan waxa waaye criteria kambaniga laga eegayo waa in waxaan ay sax yihiin habkan online ka ah inay qaldiin meelahaas laga fiirina marka waa gartay bal waxay sheegtaa qatar intee la eg ah ayaa ka dhalan karta qaababkan online ka lacag laga sameeyo horta markasto barnaamijyadan online ka waxa waaye riskigeeda waa badan yahay marka laba qayb waa u kala qaadi karnaa kuwana waxaan leenahay waa kuwa nidaam leh oo meel loo raaco leh oo qofka waxa waaye xirfadii iyo wixii oo baranayo oo adduunyada laga yaqaan kuwan waa kuwa fake hadda tusaale marka usoo qaadan oo kale forex-ka inkastoo dadka Soomaalida markay forex maqlaan waxa ku soo dhacay lacagihii laga dhacay wixii la midka marka forex suuq jira waa foreign exchange market alla tusaale marka qofkii forex inuu rabo suuqaas waxa la yiraahdaa inuu ka trade gareeyo wuxuu u baahan yahay marka ugu horeyso inuu waxyaabo laga fiirinayo waxa kamid ah marka u baahan yahay technicality-ga inuu qofkan technique-kiisa yaqaan farsamooyinka suuqan wuxuu leeyahay technique oo loogu talagalay in waxa lagu trade gareeyo si la mid wuxuu leeyahay tools iyo strategy inuu leeyahay sidoo kale wuxuu leeyahay waqtiyo la trade gareeyo marka suuqan hore oo soo sheegnay asiga 1996 meelahaas suuqan la asaasay online ka waa laakiin foreign exchange market waa ka horeeyay marka habkan online ka marka qofka wuxuu u baahan yahay in technique-kiisa inuu barto waxyaabo farsamada ay kamid yihiin strateejiyada iyo wixii la midka qofka marka technique-kiisa barto kadib qofka marka wuxuu awood u yeelanayaa inuu lacagtiisa maal gashto kadibna suuqan ku trade gareeyo ma ahan marka sidii xilliyada hore Soomaalida in dad been abuura oo waxa la lahaa inay soo galeen magaalada ay dhahayaan dadka lacagtooda ku trade gareynayna kadibna waxa la dadkii lacagahoodii in la qaatay oo lacagahoodii kaliya la isku celceliyay ugu dambeynna waxa waa lacagihii la guuray sida ogtahay oo dad badan oo xataa lacag ilaa hadda ka soo kabsan ganacsataa
kaas waa forex marka khatartiisa kaas waxay ku xiran tahay in qofka marka ugu horeysa uu yaqaano technicality wax ugu muhiimsan waxa waa technicality qofka haddii marka farsamada yaqaano oo waqtiyada la trade gareynaya yaqaano asiga waxa waa suuqan waxaa la trade gareeyaa working days 5 maalin la trade gareeyaa 2 maalin kamid ah ay dhahaan week ending waa fasax marka 5taas maalin qofku wuxuu u baahan yahay waxaa jira news jiraan oo suuqa ka soo baxaya in qofka newskan waxa waa ogaado oo markasto la socdo si lamid waxaa jiraan dad oo expertiga oo markasta suuqan saadaaliyaan suuqan wuxuu ku taleysan yahay sida qaacidada ahayd buy and sell oo nolosha bini'aadamka ku base gareysan qofka marka wuxuu sameynaa shay hadda qiimihiisa hooseeyo lacag qiimaheeda hooseyso oo qofka iibsanaa laakiin la rajeynayo hadhowt inay qaaliyoodo marka qofta lacagta markuu iibsado once buy uu leeyahay markuu lacagta qofka iibsado hadhowtana markay lacagtan qaaliyoodo wuxuu sameynaa iibinaa marka iska sii iibinaa kaasoo marka meesha wuxuu ka sameynaa profit oo ka sameynaa marka kaas waxa waaye waa nidaamka caaliga isla dadkeeda yaqaanaan waxa waaye adduunyada laga yaqaano oo suuq weyn ah qofka marka waxaa looga baahan yahay qofka forex-ka yaqaana waxa waaye asiga qof xirfad leh waaye oo yaqaana riskigiisa marka kaas fiirisa marka riskiga marka fiirno riskiga waa yaryahay walow barnaamijyada online-ka oo riskiyo badan la xiriira markasto adiga ma controlshi suuqan waxa waa suuq markasta waxa ku saameey kara news soo waxa ku saameey kara volatility dadka suuqa oo waxa la yiraahdaa ganacsanaayo oo haday yaraadaan saameyn kugu yeelan karta marka suuqan laba jiha meel buu aadi markasto ama suuq wuxuu aadaa buy ama sell uu aadaa marka haddii saaratid ay ku noqoto waxa waaye waa sidii la rabay waana waxa loo baranayo suuqa loo daraasiinayo kaas waa marka riskigiisa marka fiiriso forex-ka iyo barnaamijyada kale online-ka barnaamijyadaas dhankaas forex-ka aad u fiican yihiin qofka barto xirfadiisa barto waxa waaye riskigiisa waa yaryahay markasta laakiin riski a ku gadaaman riskigiisa waa muuqdaa laakiin riskigiisa markaa fiiriso markii loo barbardhigo kuwan oo waxaa fake ah oo scamka ah waa ka yaryahay riskiga dhanka kale markaa u gudubno marka barnaamijyadan oo scamka ah riskigooda 100% waa ayaga sababtan kuu leeyahan wax kale ma ahan qofka markuu lacagta dhigto qof maanta ma jirto oo lacagiisa dayacayo qof kasta wuxuu u baahan yahay inuu lacag helo waaribya laakiin lacagta waxay leedahay nidaam iyo process lagu helo qofka haddii maanta ganacsi uu abuuranayo waxa waa ganacsi nidaam uu maraa alaabihii uu gadi lahay shuruudihii looga baahnaa wixii dhan uu la imaanaa kadib nidaam la yaqaano maray laakiin habkan waxa waaye qofka barnaamij dad sameeyeen waaye su-aasha taagan oo barnaamijkan dadka ka dhex guuxisana waxa waaye markasto barnaamijkan goormo baxa qofka markaa maalgashatid isla daqiiqadii aa maalgashatid waa bixi karaya macnaha hadduu tagana meel loo raacdo maanta la leeyahay meel wadan hebel ah ama shirkad hebel ah waxa la barnaamijka loo raacana ma jirto marka waxa waaye waa lacagaha adoo ujeedid meel adoo meel ku tuurto kale lamid taha ama meel bad ku tuurtay ama waxaa la yihahdaa meel god lacagtaada ka sabarto waaye marka dhalinyarada markaa fiiriso dadka iyo barnaamijyadan waxa waaye waxay isleeyihin waxaa laga fiirinayana waxa waaye markasto lacagaha badan profitka laga fiirinaa waa gartay soomaalida waxaa lagu dhacay forex oo baxday waxaa ka dambeeya hadda kusoo xigay Johannesburg kuwa hadda ka damba imaan karana way jiraan maxay marka sababaha soomaalida inta badan lagu dhaca nidaamyadan online ku shaqeeya su'aal horta aad u muhiim waaye oo u baahan in laga jawaabo marka fiiriso sababaha ugu waaweyn ee barnaamijkan dadka online-ka ah gaar ahaan kuwan fake dadka loogu dhacayo waxa waaye wax ugu weyn aniga waxa u aanay karaa laba reasonka koowaad waxa waaye in dadka dhalinyarada badanaa maadaama waxaan barnaamijyadan dadka isticmaalo oo u badan oo ka shaqeysta dhalinyaro waaye dhalinyaradan waxa uu wacan oo ka keenaya aniga waxaa aaminsanahay inay barnaamijkan ku riixaya inay waxa la maalgashi ku sameeyaan ama barnaamijkan ku kadsoomaan waxaan dhihi karaa horta shaqo la'aan ba ana wadanka ka jirta waa aragtay shaqo la'aanta markii laga hadlayna waxaa la yiraahdaa waa in economics markii loo fiirino waxaa la yiraahdaa waa macroeconomic problem waa problemyada aadka ugu weyn adduunyada markii xataa campaign-ka la galayo ee madaxweynayaasha iyo waxaa la dadka campaign-ka galaya ee campaign kusoo galaan marka shaqo la'aanta waa reasonka koowaad qofka hadduusan shaqo haynin oo waxaa la yirahdaa nin iska dhalinyaro yahay jaamacaddii uu soo dhameeyey oo gurigii jiifo haddii marka qof saaxiibkiis barnaamij soo arko oo barnaamijka yiraahdo barnaamijkan ku haya oo profit badan laga helayaa marka barnaamijkan uu barnaamij janis waa ka faa'iideysto qofka marka waxa waa reason ka celisa ma jirto wuxuu leeyahay olba aniga gurigaan jiifay opportunity costiga fiirina qofkan wuxuu leeyahay marka hore gurigaan jiifay wax ma helin marka at least haddii aan maalgashi yar sameeyo waxbaa helaa uu leeyahay marka taasaa marka keenaysa unemploymentiga waa qayb weyn sababta labaad oo aanay karno waxa waaye waxa la dadka oo aan warbixin badan ka helin iyo waxa la dadka wax badan aan baarin barnaamijyadan waxa waaye barnaamijyo oo online ah oo dad saan sheegna wadamadan indha yarta laga leeyahay sida South Korea iyo wadamadaas laga sameeyaa iyo North Korea iyo
marka qofka waxaa u fudud marka in oo asigoon warbixin badan keen haddii qof asxaabtiisa ama barnaamij oo ku arko qadka inuu qofka ku kadsoomo oo waxaa la yihahdaa maalgelin hore ka sameeyo asigoo marka fiirinaya marka barnaamijyadan online-ka riskiga ku gadaaman marka lacagtan aad maalgashanaysa marka hore adiga waxaa fiirinaysaa ritaanka laakiin waa inaad cabirtaa riskiga kaaga imaan kara riskigana waxaa ku cabiraysaa companiga waa inaad ogaataa backgroundkiisa wuxuu ku yiri companigan aniga waxaa company online ah waxyaaba noocaasa bixiya dadka profit noocaasa siinaya marka hore su-aasha isweydiinaysa waxaa waaye companigu adiga maxaa tahay waa ina companiga ogaatid backgroundkiisa raadisid companiga certificate ma wataa oo waxaa la identification si lamid companiga ma registration ma leeyahay oo wadan caalami ma ka diiwaan gashan dadka iskale ma la yaqaana marka waxaasoo dhan isku keen marka waxaasoo dhan ma la isku geeyaa waxaa waaye marka companiga waxaa laga fahmayaa marka wuxuu yahay marka qofka hadduusan warbixin badan ka yihiin si lamida dadka waxaa soo jiidanaya profitka badan horena waa kugu soo sheegay mar kasta oo waxaa lahaa badan yahay ritaanka iyo dadka profitka rajeynayan riskigana waa badan yahay dadka marka haddii la yihahdo maanta tusaale ahaan waxaa helaysaa $100 haddaa maalgelisid maalintii $4 helaysaa qofku waa dareemi kartaa marka wuxuu leeyahay waa lacag saa'ida taasna waxaa ugu badan marka dadka oo ganacsatada iyo dadka waalidiinta oo aad ugu raqabin oo markii barnaamijyada loo sheego aad ay ugu kadsoomaan oo aad ay ugu qaldamaan marka barnaamijyada si guud online-ka ah ama qofka shaqo la-aan ha noqdo ama qofka waxaa la yihahdaa uusan warbixin badan keenin ama profit badan lagu soo jiito qofka waxaa loo baahan yahay mar kasto in waxaa la yihahdaa barnaamijkan dadka iska fiiriyaan waxa uu yahay dadka ka wareystaan si lamida nuusyada baaraan oo ogaadaan waa muhiim dambeyn marka waxaan ku weydiinayaa maxay tahay talada usoo jeedinaya dadka Soomaaliyeed mar walba ku dhiiranaya in nidaam kasta cusub looga keeno oo la yiraahdo profit laga helaa ku degdegay gelaya haddana maaragtay khasaare kala kulmaya maxaa tala ah u jeedinaya si guud horta ummadda Soomaaliyeed meel waliba ay joogaan ay waxaa waaye talada u jeedinaya waxaa waaye aniga barnaamijyadan marka fake ah oo scam-ka ah oo loogu talagalay in ummadda Soomaaliyeed kaliya ma ahana adduunyada ay ka jiraan waxaa loogu talagalay kaliya in dadka lagu dhaco marka waxaan u sheegi lahay in mar kasto lacagtaada meesha dhigaysid waa in lacagtan haddii beri ka maalin meesha dhiganaysid hadday ka maqnaato waa inay leedahay mas-uuliyad meel loo raacdo qof ma jira marka lacagtiisa iska xooraayo marka qofka waxaa lagu baahan yahay haddii ahaan lahayn si guud dadka ganacsatada dhalinyarada in waxaa la yihahda barnaamijkan aan mar kasta lagu qaldamin barnaamijyada inay soo laabtayna muddo dadkii forex-ka lagu qaaday oo lacago badan oo waxaa la fooqal caalamiga laga qaatay si lamida waxaa la yihahda hadda waxaa soo baxa CJ on style haddadan barnaamijyadan hadda maalmahan CJ-ga xirmay haddana CJ-ga isla asigaa soo laabtay oo still dad dhalinyara barnaamijka ku jiro oo isleh bar lacagihii ka hela ama lacagihiin kasoo ceshta marka barnaamijyada waxaa moodaa marka inay barnaamijyo xiriir leeyihiin goor sii horeysana barnaamijkan CJ-na waxaa ka horeeya mid ay leeyihin Jane Mine kaas waxaa lagu doodaya inuu yahay company oo wadanka UK dowladda UK ka dhisnay companygaas marka waxaa waaye nin Nelson la leeyahay iska lahay oo companygaas marka wuxuu haystay certificate-kana waa haystay oo companiyada la siiyo si lamida registration waa haystay haddii marka company registration haysto oo certificate haysto oo aad loo aqoonsan yahay waxaa la yihahdaa oo wadan weyn sida UK oo kale ka dhisan haddii marka companygaas uu gooyay marka maxaa is leedahay marka companiyo barnaamijyo kale oo online-ka oo ayaga lamid ah oo dadka lagu dhacaayo aan lahayn meel maanta loo raaco sal iyo raad lahayn waa dareemi kartaa marka si guud marka dadka waxaan aniga ugu digayaa oo waxaan leeyahay barnaamijyadaas yaan lagu kadsoomin yaan lagu qaldamin waa barnaamijyo fake ah lacagaha la sameynayna adduunka markaa fiiriso haddii lacag saas lagu taajiri lahay ama lagu sameyn lahay wadanka dhanaa marka adduunka taajir wada noqon lahay marka waa program oo fake ah marka program fake waaye yaan lagu qaldamin marka yaana lagu kadsoomin taasaan marka u sheegi lahaa ummadda Soomaaliyeed guud ahaan halkaas ayaa kusoo gabagabeyneynaa wareysigeena gaarka ah aan ku falaqeyneynay asbaabaha keena in Soomaalida marar badan lagu dhaco lacagaha online-ka habka online-ka ah lagu shaqeysto barnaamijka waxay la falaqeynayay oo martigu ahaa Haashim Maxamuud Xayle oo bartay cilmiga dhaqaalaha inta wareysi ama falanqeyn noocan oo kale aan ku kulmeyno waa bahdi gal ganacsi idinkaga tagaysa sidaas nabadgelyo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh